isla xisaabta kuwa hanaan la isku raacsan yahay inuu lafdhabar u yahay qabsoomidda shaqo wanaagsan isla markaana abuura dowlad wanaag iyo kalsoonida shacabka iyo dowladooda ay ku wada shaqeeyaan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka duulaya aragtidaasi ayaa kulamo isla xisaabtan ah oo kafool waxa uu la yeeshay xubnaha golaha wasiirada si looga dhabeeyo barnaamijka dowladda ee nabad iyo nolol. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta soo gabangabeeyay wajiga koobaad ee qorshaha lagula xisaabtamayo golaha wasiirada taa oo soo bilaabatay maalintii shalay ahayd iyadoo wasiir kasta uu soo gudbiyay qorshe howleedka wasaaraddiisa ee 100 maalin taa oo noqon doonta tan wasiir kasta lagula xisaabtami doono isla markaana lagu qiimeyn doono waxqabadkiisa marka ay dhamaato 100 maalin sida warbaahinta qaranka u sheegay wasiiru dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Mudane Cabdullaahi Xaamud. 100 maalmood markuu dhamaado hadda waxaan nahay meel dhaxaad ah hadda joogna marka 100 maalmood dhamaato sidoo kale hadana sidaan oo kala dhacayso wala soo yeeri doona marka wasiirro waxa jiri doona oo howlii loo idmaday ama ay soo bandhigeen ka gudbi doona oo kadibna sameyn doona kii sanadlaha aha wasiirro waxa jiri doonaan u baahnaan doona xoogaa yar in laga caawino ama caqabado ay jiraan oo u baahan in wada tashi gol ahaan laga sameeyo si wixii loo furfuro kaas markuu dhamaadana waxaan u gudbaynaa kii 2 sano ah kii 3 sano ilan waqtiga uu madaxweynaha mandatekiisu uu yahay waa 4 sanadood anagana waxaan ku talagaleynaa horta inay shaqooyinka ay socon doonaan mandateka madaxweynaha ku socdo marka anaga asaka xukuumad ahaan waxaan ku sii talagaleynaa hamiyada uu madaxweynaha saarayo diiradda saarayo xagga amniga xagga kobcinta dhaqaalaha xagga shaqo abuurka dhalinyarada xagga kaabayaasha dhaqaalaha la soo celinayo waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxyaalaha hadda aan ka hadlayno oo u baahan inay wasaaradaha dhan wada shaqeeyaan si loo wada gaaro horumarka ee Soomaaliya ay rabto inay gaarto. Qorshahan ra'iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre kula xisaabtamayo xubnaha golaha wasiirada ayaa hanaan ku cusub dowladnimada Soomaaliya qaybna ka ah qorshaha lagula dagaalamayo musuqmaasuqa iyo maamul xumada oo haddii ay dhacdo dhaawacaya hanaanka dowladnimada. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.